السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegaystayaal ku soo dhawaada warka LLN TV oo idinkaga imanaya xaruntiisa magaalada Kampala warka caawa waxa idin la socodsiin doona aniga oo ah Yuusuf Birjeex qodobada warkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa kamida taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee caasimadda dawlad deegaanka ee magaalada Jigjiga ayaa waxa weerar ku qaaday kooxo ku hubeysan dubayaal iyo qalabka wax lagu burburiyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo xisbiga ONLF oo uu hogaaminayo gudoomiyaha ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maade ayaa kulan muhiim ah isugu yimid golaha wasiirada Soomaaliya ayaa kulankoodii ugu horeeyay isugu yimid tan iyo markii uu xafiiska baneeyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Xasan Cali Khayre madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa sharci darro ku tilmaamay xilka qaadistii ra'iisul wasaare Khayre haatana u diyaar garooba qodobada warkeena oo faahfaahsan taalada Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa weerar ku qaaday kooxo ku hubeysan dubayaal iyo qalabka wax lagu burburiyo booliska dawlad deegaanka Soomaalida ayaa goobta soo gaadhay isla markaana gacanta ku dhigay kooxihii hubeysnaa kooxahan hubeysan ayaa la aaminsan yahay in ay ka dambeeyeen jabhadda TPLF taasi oo doonaysa inay qalalaase siyaasadeed ka abuuraan guud ahaan dawlad deegaanka Soomaalida iyo waliba guud ahaan dalkaasi Itoobiya haddaba jabhadda TPLF oo u muuqata in ay laftoobin ku hayaan ayaa dhibaato fara badan u geystay dawlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo xisbiga ONLF oo uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maade ayaa kulan uga qabsoomay Jigjiga International Hotel kulanka oo u dhaxeeyay xukuumadda dawlad deegaanka iyo xisbiga ONLF ayaa la sheegayaa in is-afgarad laga gaadhay kulankan oo ay ka soo qayb galeen madaxda ugu sareysa xukuumadda dawlad deegaanka iyo xisbiga ONLF ayaa lagu gorfeeyay qodobo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen sidii looga wada shaqeyn lahaa nabadda iyo sidii isku aragti looga noqon lahaa danaha shacabka Soomaalida kulanka oo muddo socday ayaa la isla qiray in ay lagama maarmaan tahay sidii bulshada loogu jihayn lahaa dhinaca wanaagsan golaha wasiirada Soomaaliya oo shirkii ugu horeeyay yeeshay tan iyo markii ra'iisul wasaare Khayre xafiiska baneeyay Mahdi Maxamed Guuleed kusimaha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa gudoomiyay shir ay yeesheen golaha wasiirada waxaana uu qoraal ku yiri waxaan maanta gudoomiyay shirka golaha wasiirada oo looga hadlay amniga dalka xaaladda COVID-19 iyo dib u furidda dhammaan adeegyadii iyo shaqooyinkii u xirmay la tacaalidda COVID-19 sidoo kale golaha ayaa bogaadiyay taageerada ay shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin saaxiibada Soomaaliya waxay sidoo kale ka codsadeen inay sii wadaan taageerada ilaaliyaan madax bannaanida dalka dhammaan talooyinkana ay u marsiiyaan baa la yiri marinada diblomaasiyadda madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo hadlay isaga oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in xilka qaadistii ra'iisul wasaare Khayre in ay ahayd mid qorshaysnayd oo lagu burburinayay shirkii Dhuusamareeb iyo shaqadii wanaagsanayd ee halkaasi lagu qabtay sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Deni ayaa gebi ahaanba ku tilmaamay xilka qaadistii Xasan Cali Khayre mid sharciga garab marsanayd kaasina wuxuu ahaa wariye Birjeex oo inooga warramay stuudiyaha magaalada Kampala haddana waxaad ku soo dhawaataan qadar yar oo muusiga
abaay qarnayu ku kasmarini abaay ijiyo hasiitaynin abaay